waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici waxaan bogaadinayaa oo farxadana la qaybsanaya dhammaan ardayda 87 ah ee maanta ku dhamaystay waxbarashadoodii heerar kala duwan waliba maanta ay u suurto gashay mid ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland oo Camuud ah inay bixiso jaamacadda PhD haddii la yiraahdo 10ka na si gaar ah baan u hambalyeynaya haddii la yiraahdo waan hambalyeynayaa gudoomiyaha jaamacadda boardka jaamacadda maamulka jaamacadda Camuud oo runtii ah institution guuleystay oo qaranku ku faanayo maanta jaamacadda Camuud waxay u baahan tahay haddii la isla wax ka qora in buug laga qoro wuxuu ahaa dugsigii ugu horreeyay ee sare ee xilligii Ingiriiska ee Soomaaliland keligii ay yeelatay waxaa ka baxay odayaal badan oo ay ka mid ahaayeen Axmed Maxamuud Silaanyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Saleebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida iyo in kale oo badan oo aanan halkan ka sheegin hadda laakiin de taariikhdu xusi doonto institution-kani ma aha institution tacliineed oo keliya waa institution bulshadu leedahay oo ka turjumaya ummaddu markay iskaashato inay wax qabsan karto guuleysan karto waa institution nabadgelyada dalka guud ahaan iyo gobolka ka qayb qaatay waa institution dhaqaale waxaan isleeyahay institution dhaqaale ugu weyn gobolka marka ma aha jaamacad una kala laga galo laakiin qaybo kale oo badan ayay u saamaysaa bulshada gobolka Awdal waa jaamacad magac weyn yeelatay oo dad badan oo ka baxsan xuduudaha Soomaaliland ay caruurtooda ku aaminaan una soo diraan wanaagaas dadka sameeyay ee hirgi haday boardka tahay haday maamulka jaamacadda tahay waan ku inayaa waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan maanta anoo boorama jooga oo hirgalay mid ka mid ah ballanqaadyadii xilligii Kenya oo ahaa madaxweyne kiisa si nabada ugu soo noqdo gurigiisa iyo dalkiisa ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi baaya dalku iska badan yihiin jaamacadda markii aanu wareysanay baahiyeedu marka la eego ma badna laakiin de dhaqaalaheena uu koob waxa ka mid ahaa in hoolkan quruxda badan waa ka ugu weyn Somaliland aan uga mahadnaqayo ciddii dhistay Camuud Foundation iyo qurba joogii ka qayb qaatayba xukuumaddu waxay iyaduna ballan qaaday fulinaysaana sida ugu dhaqsaha badan iyadoo ay dalabtay qalabkii hoolka u baahnaa la yiraahdo waxa kaloo baahaya jaamacadda 4 arrimood oo kala jiray 4 arrimood waanu fulinaynaa laakiin sidoo kala horeeyaan ayaan eegi doonaa waxa ka mid ah in xarun maamul oo cusub loo dhiso maamulka jaamacadda haddii la yiraahdo waxa ka mid ah in campus cusub si ay u dhisato magaalada Hargeysa dhul la siiyo labada arrimood kalena bana lagu dhiibay marka insha Allah waxba ku sii maayo iyagana waxaan ballan qaadaynaa oo waa fulinaynaa wana soo kala horeynayaan haddii la yiraahdo ballan xilligii doorashada
aanu ballan qaadnay gobolka Awdal waxay u badnaayeen dhinaca horumarinta. ballanqaadka waxaa ka mid ahaa in xukuumadda cusub hadday guulaysato ay dhisto madaarka magaalada Boorame. marka waxaanu sheegaynaa ballanqaadkaasi wuu fulay, gacantana lagu hayaa, waana la dhammaystiraya madaarka magaalada Boorame. kalkalna wuu ahaa in waddada isku xidha Baki iyo Boorame, kaasina wuu socdaa, waana la dhammaystiraya haddii aan la yidhaahdo. ka saddexaad wuxuu ahaa mashruuc aad u ballaaran, mashruuca ugu ballaaran Somaliland, waa waddada isku xidha Lowyacaddo iyo Boorame, kaana qandaraaskiisii bishan dhammaadkii bixinaya. ka afraad wuxuu ahaa dekedda Laya. dhowr jeer baa la weydiiyey mashaariic dhagax dhigo, waxaan ku yidhi markaan lacagta helaa uma dhagaxa dhiga. dhagaxyadii hore aanu ka doonayno ka ururino waddanka. marka insha allahu iyadana hawsheedii waa ku jiraa. shacbiga gobolka Awdal waxaan uga mahadnaqaynaa qaybtii ay ku lahaayeen inay ka qaateen oo ay fuliyeen. intii xukuumadda ku hadhayna xukuumadda ballan qaaday, waana la fulinaya mashruucaas haddii la yidhaahdo. xukuumaddu guud ahaan waa xukuumad shacbigeeda la dareena. waxaanu jecel lahay in waxyaabaha wax ka beddelaya nolosha qofka muwaadinka ah ay noo noqdaan muddo, oo ay ka mid yihiin laydhka. waynu ognahay duruufaha ay ku shaqeeyaan dalku, maca shirkadaha laydhku duruufo adag bay ku shaqeeyaan. laakiin waxaynu doonaynaa inaynu isku soo dhoweyno noloshii dadka haddii aan la yidhaahdo. wuxuu noqday mid ka mida nolosheenna ama ka ugu muhiimsanba hadda maanta. sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa ee magaalada Boorame oo wadahadal kadib ogolaatay inaanu xukuumad ahaan ka dhigno qiimaha laydhka eber 5.9 laga bilaabo 1 Novembar 2025. waxaa kaloo aan isla qaadanay shirkadda in halkaa laga sii jabiyo laydhka. waxaa jira mashruuc lagu maalgelinayo laydhka magaalada Boorame oo sanad gudihii ku dhammaanaya insha allahu, oo ah $10 milyan. marka mashruucaasi dhammaado waxaa laydhka magaaladu noqon doonaa $0.3 oo tentatively noqon doona November 2026. biyo la'aantu waa mashkilad weyn oo qaranka oo dhan haysata dhammaan magaalooyinka. wakaaladda biyaha ee Boorame waxaa loo sameeyey biyo ballaadhin looga sameeyey sanduuqa horumarinta oo $10 milyan. waxay xukuumaddaanu garannay maadaama investmentkaa la geliyey in qiimaha biyaha magaalada Boorame laga dhigo mitir kiyubkii 11,000 oo Somaliland shilingisa. waxaa kaloo jira mashaariic kale oo aan ballanqaadka ku jirin laakiin aanu fulin doono. xagga caafimaadka, cusbatalka guud ee magaalada Boorame 2 mashruuc baanu ku soo kordhinaynaa. mid waxa weeye in loo sameeyo oo loo sameeyey already warshaddii ay dhalinaysay oxygen-ta haddii aan la yidhaahdo. mashruuca labaad waxa weeye city scan ayaanu ugu deeqaynaa cusbatalka magaalada Boorame. waxaa kaloo maadaama shacbigeenu dhalinyaro u badan yahay, isboortigu muhiim buu inoo yahay. waxaanu lagula dagaalamayaa balwadaha. sidaa daraaddeed garoonkii magaalada oo aan wakhti dheer wax laga qaban, waxaanu maanta dhagaxii dhigi doonaa, waana dhammaystiri doonaa wixii ka qabyaa garoonka dhallinyarada.
wixii kale ee magaalada iyo danaheeda iyo cabashadeeda intaba waxaan ka wada hadli doonaa odayaasha caawa haddii la yiraahdo kulanka aan la leeyahay odayaasha haddii la yiraahdo waxaan kaga tegayaa xukuumaddu waa xukuumad waqti yar joogtay intii tamarteedana way dadaalaysaa duruufo badan oo intii ay joogtay ka soo dabaalatay oo aad u adkaana way jireen oo ay ka mid ahaayeen qaramayntii ciidanka dhalinyarada ahaa ee gobollada bari iyo kala wareegistii hufkii iyo gaadiidkii ay haysteen oo ahaa runtii mashruuc weyn marka jaamacadaha lagu dhiganayo DDR project baa la yidhaahdaayoo waxaa laga yaabaa 6,000 aanu qaramaynay haddaynu jimciyadda quruba ka dhexaysa weydiisanno inuu $50 milyan noqon lahaa laakiin innagaa fulinay inagoon cidna waxba weydiisan haddii la yidhaahdo ballanqaadyada kale waxaa ka mid ahaa aan miisaaniyadda noogu jirin aanu bilownay mashruuca waddada balgubadle iyo hargeysa iyo mashruuca baki iyo boorame oo la bilaabay iyo dhammaan mashaariicdii aan halkan ka sheegay imaka insha Allah waanu ka fulin doono magaalada boorame ama gobolka awdal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka jaamacadda oo ay ka muuqato sida uu u koray muddada dheer ee ay soo wadeen jaamacaddu sida la sheegay waxay bilaabantay 1997 Professor Halas wuxuu inooga warramay dufcaddii ugu horreysay qalin jebisay intay ahayd 47 maantana waxaa qalin jebiyey 1,087 isugu jira PhD Masters iyo Bachelors ardayda qalin jebisay 22 waxay ku qalin jebiyeen geed hoostii maantana waxaynu fadhinaa hoolkii ugu weynaa Somaliland waxaan jaamacadda ku bogaadinayaa iyo jaamacadaha qaranka ee Camuud iyo Hargeysa iyo Burcaba inay hab yeesheen manaahijtoodana mideeyaan si tacliinteenu u noqoto mid tayadeedu ay aad u fiican tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin asalaamu calaykum